duqa caasimada gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakar xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta golaha deegaanka Gabiley waxa ay hambalyo u direen musharaxa jagada madaxweyne mudane Muuse Biix Cabdi iyo musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen Cabdiraxmaan Saylici iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaan maanta halkan hambalyo iyo ducaba uga diranaa anaga golihii deegaanka degmada Gabiley madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo aan ku hambalyeynano go'aanka taariikhiga ee dhaxalgalka ah ee uu shalay toole kaga dhawaaqay shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u hambalyeynaa madaxweynaha runtii waa arrin taariikhiya halkan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maanta isagoo ahayd in teeramkiisii labaad ee dastuurku siiyay oo u tartamo tanaasulay waxaan leeyahay waa guul iyo magac aan weligiiba ka hadhaynin oo saarnaanaya halkan waxaan maanta u fadhinaa anigoo oo ah golida deegaanka inaan ku hambalyeeyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo uga tanaasulay teeramkiisii labaad ee uu xaq u lahaa jaaniskan uu siiyay cidii ay isla garteen golaha dhexe ee xisbiga madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha aad iyo aad baan hambalyeynaa gudoomiyaha guusha qaran oo ah taw madaxweynuhu ku talaabsaday waanu ku mahadsan yahay waanu ku hambalyeynaa inuu teeramkiisii labaad ka tanaasulo guusha ay gaadheen labada musharax ee ku soo baxay tartanka muxuu ahaayay soo socda ee madaxweynenimo iyagana waan ku hambalyeynaa marka labaad waxaan hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo maanta waxaan ka shaqeynaynaa inuu diyaar u nahay waaga cusub ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay inaanu kala shaqeyno waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha waxa weeye taariikhda qori doonta insha Allah hadna waxaan hambalyeynaa horta cidii ku guuleysatay waa Muuse Biix isagana waxaan leenahay hambalyeynaya mar haday kulmiye maanta soo saareen Muuse inuu nala tartamo waxaan leeyahay waan hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa tartan wanaagsan nala galbaan leenahay waana ku hambalyeynayaa guusha u gaaray waxaan ku hambalyeynayaa labada musharax ee ka soo ku guuleystay hawsha mudane Muuse Biix Cabdi iyo mudane madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo ku hambalyeynaa sida nabadgelyada ay u dhacday doorashadii xisbiga kulmiye taasoo ummadoo dhan ay dhagaha u taagisay maantana ay ku dhamaatay si nabadgelyo oo farxad iyo karaamo mudan Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley